dadka maxaa dheesiin maxaa u tahriibaysiin waddanaa haysatiin waddanka waddan oo askartii anaka la ilaalin lahayd ayna cabiidayaan waddan miya waa Coco Bule oo caan ku ah baraha bulshada isla markaana cabasho ay ka muujinayso mid ka mid ah ciidamada Nasar oo dhibaato u geysay sidoo kalena aflagaadeeyay oo ku xadgudbay ee gabarnimadeeda Nisa inta badan waxay shacabka Muqdisho kala kulmaan mararka qaarkood dhibaatooyin aad u adag taas oo ah inay ku xadgudbaan iyagoo sidoo kalena aan ixtiraamaynin dadka ciroolaha iyo sidoo kale caruurta iyo haweenkaba ee la arko mararka qaarkood inay u geysanayaan dhibaatooyin jirdil ah oo ay kala kulmaan ee dadkani muuqaalkan waa gabadh caanka ka ah ee baraha bulshada Coco Bule oo diraysa fariin adag taas oo ah in ciidamada Nisa ay sheegeen inay wadaan dad ajaanib ah iyaduna ay ka qiimo badan yihiin dadka ajaanibta sidoo kalena ay baneeyaan ee wadada markay murmeen ee daqiiqado kadib waxay u sheegeen in iyagu ay dhow yihiin isla markaana dadka ajaanibta gadaal ay u laabtaan maadaama dhowr dhagaxaan ee checkpointiga ay soo dhaafeen iyaguna ay tahay cid kaliya ay kaga dhow meeshaas ay ka gudbaan askariga ayaa u sheegay ninka waday ee darawalka ee baawurka gabadhan caanka ahayd ay saarneed u sheegay in kaliya uu wado gabdhaha ka ganacsada ee jirkooda ee uusan wadin gabar xalaal ah isku khatareen oo dhilaa u saaran imagine like how the fuck is that cadaalad u tahay because of Korea watawa ka xoog badan khaylo xoogan ayaa ka yeertay baraha bulshada kadib markii gabadha ay sheegtay in askarigaasi qaladkaas uu ku sameeyay ciidamada Nisa waa qaladaadkoodii kuwa markaas soo laalaabta iyagoo xilli dhawaan ay ahayd oday daa ay dhibaato ugu geysteen caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya ku xadgudbeen iyo sidoo kale dumar aad u tiro badan ciroolaha iyo dumar uur lahaa kuwaas oo ku xadgudbeen iyagoo ku jiidaya ee dhulka si arxan daranna ee baraha bulshada la soo galay muuqaalkooda waxa raba kugu sameeyna waay waxaas and imagine insulting or intaas la eg just because nina ajnabiga wadaani jidkiiga leh xano xaq uga leh anaka Soomaaliya oo wadankeena iska leh aadan cariiri iyo maalin kasta inaan dhulka canaad oo ku dhex dareemayna asoo nin askari Soomaaliyeed ah oo wadankeyga joogo oo loo talagalay inuu idifaaco kalimi nin ajnabi ah wadaaya jidku u banay adiga you guys airportka jooge saak calsi airportka ay diyaaradeed waqti ahayn waqti ka hor ay tagay wax naqsanay you guys garaal hada wiliga leeyahay saana video miska soo doomin but this time ila ahay il runta ay buuxdo waaya asaan waxa waaye anaka Soomaaliya oo wadankeena iska leh aadan cariiri iyo maalin kasta inaan dhulka canaad oo ku dhex dareemayna and that's so sad wallahi billahi so sad I was so happy I died and والله موت كدنا يقلدنا على وجهه استغفر الله anyways وحيد عاني شيء فيريا waxaan nulku hayo waxa camal waa wadada airportka kasoo baxaya checkpointiga and then waad qaadinba markii checkpointiga laba gaari ay isdhaafto sax gaarigeena ana ka wadane literally meesha laga baxaya airportka birta literally hal dhagax u dhiximo hal dhagax u dhixay I wish ina duubi lahaa hal dhagax u dhixay and then gaari oo Nisa ay ku qoran tahay oo askar Nisa ay saaran yihiin oo gadaashiisa gaariyaal kale oo ajnabi ah wadaan meesha soo galaan anakoo nalka dhigdhag u siinayno dan dawar la gadaal u laabta literally ayka hal dhagax le ee soo gudbeen way laaban karaan deeb wayna arkayeen markaas soo galeen then he was like nagalaabta soo gaariyan saarko siin proof waay ma hano muraayadiis qof ku dhex jira ma la arkaayo and then wiilka maxaa la isha qalbaabko furay wuxuu dhahay anaka baniga dhawaa oo bixi karne you guys gadaal u laabta adika because of askar waaye waxay wataan maxaa la dhahaa isha gaari oo military ah oo Nisa ku shaqadeysan tahay wataan darteeda aniga waxaan ku dhahay shaqo ma kulihinin laabta dad ajnabi ah wadna aniga Soomaali ah oo wadankeyga iska leh oo
وقال لي حتى هدي حق لها معقول يا هالد وقال لها لكن انا حق له oo wadankiis kale ani mana ajnabi dartooda baawur mukeef qabow ku jiraan like literally wax misdaano because of this is my country yani ana baxaq leh bani mankaas dad they were like gadaal walaabta out of nowhere nina meesh ka soo degta he was like albaabku saa u soo fiiri and he saw me in ani saaran gaari and you know what he said